السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود وهذا channel كيجا my beauty. هذا تكون عصبت هاي channel كيجا فضلا لايك سبسكرايب كومنت كأيجي ولا إلوبنا. ما دوني introduction كماتنا نقول ديريو مركها I hope إن تسمع عن وبروتين ميك اب كا أما تسميه and family join كريا family كا social media كنا إيجا ولا follow كريا تيك توك وما تكوريسي وايو because تيك توك بني ميك إن بدو كتيرة تيك توك انستغرام سناب شات فيسبوك وحكي استباع وكتيرة يوتيوب نهدت أفنجليسكو هذا شيء and channel كنا نوان هيستا مايا توكس لي هذا أنا أفنجليسكو هلا and ها I hope إن كنا بروتين سلاس مايو داوشوا عن فيديو I hope إن enjoy جلسين. السلام عليكم. Okay, وبلعبنا makeup كني بلعبنا and guys هذا سكلمات وإيجي هاي it's because كاميرا دايدا عيان يرببدلي and in terms of like ساسفة عنو أركتين makeup كا مركا I hope إن تكيشين مانتا makeup look and سمينا يو and وحنكو بلعبة يا هورتا fresh deep hydration oil infused serum ساسو إيجي هاي and maanta darkaygii baan hor xirtay usually waxaan sameeyaa normalement darka xafada ku jooga ayaan xiran yahay and then markaan dameeyo ayaan libistaa because waxaan ka baqanayaa xijaabkan igu isagoobo ma xijaabka waan bedelaa garankii waxaan xiran yahay aan dibadda u baxay inuu igu isagoobo maanta waxay siri waa karaysaa bal waan isku dayi doonaa inaan insha Allah darkayga iska uskageen markaa insha Allah kanaan markaa wejiga marinayaa waxaan u baahanahay hydration واكاس باشن وألابيرو خطرة and واكاس وحمرسنا مركا and lip collagen كأيان دوني أنا مفروره هيجير مريو مركا مرايدة ده حق الهوس يالا so quickly بان يلا وحن دوني يا actually ما أنت character كيجا إن أنا مرسدو actually flashing up eye cream بمرسدو yeah let's put a little bit of flashing up eye cream and flashing up eye cream بان عندها مركا مرنا وحويين and eye cream يعني مرسنا مركا عندها أيان كويرة توشينيا عندها وحن استعماليا مساج تركي محيو مركا فرحيجا ring finger كيا أيان كو مساج كرينيا okay and وحن مرسنا Huda beauty primer love this primer وحويين water jelly primer ساسو ايجي هنا ساسو وجهي إميكا أيان كاركترينيا مركا ساني شيغوا دنايدا يري ممدو تاششكا هكذا أيان دول مرينيا وحويين كاركتر بانير هذا لكي هو concealer bright fix eye brightener بلدها عشان واحد قلت لها like a bright fix you know إنا عندها هوتيسا لير قرحيو but orange كو وحوين to conceal really إنا نكو قرنو and مركا مرسنا يا ميكا بيبا تاششكا أودان فننكا ين conceal قراننا and then brush بانير كويرا blend قراننا مرايت دان سكويرة اجيا and one conceal قراني so أركيسين با I look a bit crazy I know waxaan sameyn doonaa imika I don't know waxay maanta iga haysaa inaan conceal garayo before foundation ka marka waan iska sameynayaa warm sand so waxa weeyaan Too Faced Born This Way warm sand ayaan wejiga oo dhan xaggii aan marinay concealkii orange ka ahaa Fenty Beauty ayaan dul marinaynaa kan wejiga oo dhan ayaan dul marinaynaa wow intii aan conceal garanaysaa yiri I don't know I like very ban everyday can استعماله today in terms of routine كان وحويا concealer just before your foundation مركا conceal just before your foundation like you want to جي يمكن هذا نكون نقضي مركا ما يربلند كده okay and so أركزين با ولا blended one blend قرية إمك وحن زمين دونا foundation كيجا أيام سوق قادنيا foundation كأن مرسنين وحويين NARS وحلدها soft matte complete foundation love this product أدي بنوش عليها وحويين you know especially winter كأيام بنوش عليها and although dry skin من هيسا
but it's so good. Like maha dewy, if you know what I mean, dewy maha, and waxa weeyaan and matte. So wajigaaga haddaad oily skin haysid kan waa perfect, lakin doesn't mean haddaad dry haysid ma marsan kartid. Anu dry skin, severe dry skin baan haystaa, haddana waa marsadaa, and I love it. Makeupkayga markaan marsado kan iyo powder iyo I just feel like waxa weyn qofku inuu sprayo badan isticmaalo in between, but waa perfectly normal and inaad qofku marsado kan, because a lot of people laga dhahaa, you know, dry skin baa haystaa, you shouldn't be wearing this. You know, oily skin baa haystaa, you shouldn't be wearing this. Waxaad doonaysid marso, just waa inaad, you know, steps ka horeeya iyo skincare waa inuu fiicnaado, you know, hydration badan wajigaaga waa inaad gelisid sida hadhow toole dee dry skinkaagu dee skinkaagu u qaylin, and so wajigaaga si fiican u prep garee, essence marso. So many products baa jirta oo before makeupka la marsado siduu makeupka ku hayo amba sida makeupka, you know, sida makeupka lilin amba eczema amba dry skin u dildilacin. So ilaaliya skinkiina, skinku waa very very important, waa muhiim. Skinkeena sida cuntada afka u gelino wajigana aan siino cunto, face mask, you know, ala marsado every week, alis dul saara hydration haddaad, you know, dry skin haysid, hydration mask markasta week kasta marso. And inshallah haddaad doonaysiin video u gaaraan samayn doonaa, lakin videogan ma doonana nigu deerayo, markas waa ka cabatiin waxaad tirahdeen videogan nagu deeraynina, marka kanaan marsanaya imika. So waan yar ruuxayaa, and then waxaan doonaya actually inaan brushka mariyo because darka ma doona isaga xumeeyo. Marka brush Morphe aan soo qaadanaya, Morphe M439 brush, and then waan ku yara dul daadinayaa. So arkisiin, I don't know arkisiin. Technique-kan ma jecli inaan sameeyo, lakin maanta videoga ayaan daraadii baan u sameynayaa. I'm just gonna saasan sameynaya, you know, waan dul marmarinayaa. Okay, wajigii oo dhan ayaan blend garanay. I know a bit crazy baan weegahay, eyebrows-ka inaan sameeyo ayaan u baahan yahay literally. Marka concealer-ka ayaan marsananaa. Concealer-ka aan aad u jeceliyo waxa weeyaan Boldness Bay, so Too Faced Boldness Bay concealer. Labada shade aan hayn waxa weeyaan Warm Sand iyo Cookie. Marka Warm Sand ayaan wajiga oo dhan xagga inta hoostiisa, you know, afka ayaan imika marmarinayaa. So ila daawada insha Allah. Sanka ayaan marinayaa, so arkisiinba, and then kor baan yara kacayaa, so waa kaas, and then waan blend garayn doonaa insha Allah. So so arkisiinba, and then waxaan soo qaadanayaa Cookie, waxa weeyaan concealer-kii lakin shade-keeda lighter weeyaan, and ma dul marinayo, lakin waxaan marin doonaa xaggan yar koonaha ayaan in yar marinayaa, so arkisiinba, in badan maaha. And then imika waxaan sameyn doonaa blending-gii baan sameynayaa, and waxaan isticmaalayaa waa Zoefa brush, Conceal 142 brush, and then blending-gii baan noo harsan, and labadaba waan isku mix garanayaa, so arkisiinba. Warm Sand ayaan afka oo dhan marinayaa. Okay, waan blend gareeyay, gacantii baa bay xanuunsayba. Marka waxaan sameynayaa imika Huda Beauty Tantour Contour and Bronzing Cream baan isticmaalayaa, ku jarayaa, and so waan ku jarayaa basically. Eegayaa. Kaas, and then in yar baan xaggan yar marinayaa. Afka dushiisa. And then forehead-ka ayaan in yar marinayaa, Nutella, jawline-ka, hagan. Okay, and that's enough. Imika waxaan sameynayaa, waan blend garanayaa, and yeah, so waan wala blend garanayaa. Waxaan isticmaalayaana Morphe, and in collaboration with Makeup by Ariel brushes. Love these brushes, lakin horegu like uskag bay noqdaan. That's the only thing aan ku naco brushes kan, lakin waa brushes yar oo cajiiba. So kanaan ku blend garanayaa. So arkisiinba, up and down motion baan isticmaalanaa, oo hope hijabka inagu xumeyn.
So up and down motion. So arkaysiinba. Okay, and so arkaysiinba up and down motion weeyaan. Up and down motion ilaa uu de blend gareysmayo ma toojinino. So waxay ku qaadanaysaa yaro time marka uu nagu soo noqon doonaa. And all blended waa kaas contourkii waan hagaajinay. I don't know in yar baan doonaya inaan marsado bronzer, and before I'm blushka iyo bronzerka gaarin waxaan doonayaa powderka Fenty Beauty in Banana. Waxaa la dhahaa the Pro Filt'r powder. Everything hoosta ayaan kusoo qorayaa, so had ka baqinina xagga hoosta ayuu kula qorayaa wax kasta aan maanta isticmaalay. So powderkan ayaan doonayaa markaa indhaha hoostiisa inaan mariyo. So powderka ma markaa indhaha hoostiisa u marinayaa. Waxaan isticmaalayaa maanta should I use a beauty blender? Or should I use a brush? I think brush baan isticmaalaya maanta. I'm gonna tack it on. So brush kan yar baan isticmaalay waxa weeyaan by Morphe E48 brush baa la dhahaa. So waan soo qaadanayaa, and then waxaan doonayaa indhaha hoostiisa inaan basically geliyo. So powderka ayaa gacan ugu packarayo. So arkaysiinba. You know, powderadayda in baan jecelihi inna ma jeceli. Marka kan oo kale, oh my god, difference ka arki kartiin. Waa yara fogtiin, gabadhu maanta wuu yara fog yahay, laakiin zoomed in baa tihiin. But si fiican baan u zoom gelin lahaa, like difference ka kan iyo kan baan tusi lahaa. I think waa arkaysiin, waa arkaysiin, because still zoomed baan yahay. So imikana, okay. Imika waxaan sameynayaa, although brush kan baan isticmaalay, powder kan baan isticmaalay, waxaan doonayaa Laura Mercier powderkayga inaan afka iyo xaggan ku gooyo. Marka ila daawada makeup Ariel Morphe collaboration. Waa kaas, marka waxaan sameynayaa in yar daqiiqado ayaan ku daynayaa wejigayga, and marka intaan waan iga yar maqnaanayaa. Waxaan doonayaa inaan waan soo noqon doonaa laakiin xirbaha, eyelasheska, mascara wixii oo dhan waan soo gashanayaa, and then waan iska soo masixi doonaa intan oo dhan. Powderka wejigana waan spray gareyn doonaa. Markaa spray aan isticmaali doono waxa way noqon doontaa Fenty Beauty Refreshing Spray, and saas uu eegyahay. And maadaama kan uu isticmaalay waxa weeyaan, you know, maanta dumaan powder isticmaalinay, marka waa very muhiim inaan de refresh yar noqono. So waan igu soo noqon doonaa insha Allah. Hey, waa kaan igu soo noqday, and wejigii oo dhan lasheskii baan soo gashtay, eyebrowskii baan sameeyey, powderkii oo dhan waan iska masaxay. So arkaysiinba last time waxaan sameeyey wejigii oo dhan waan spray gareeyay. I love this spray wallahi. Wejigii oo qaleyl ayuu refresh ka dhigayaa. Waxaan u baahnaa weeyaan markaan makeupka powderkii wixii oo dhan marsaday. Marka imika waxaan sameyn doonaa bal in yar oo bronzer. So Morphe bronzer Glamabronze Megastar ayaa la dhahaa, in the shade Megastar. Magaca waxa weeye Megastar. Ayaan doonaya inaan ku bronze gareeyo, and then waxaan doonaya inaan isticmaalo blusherkeena. Marka ila blushka amaanta isticmaal waxa weeye Cheeks Out by Fenty Beauty and Rose Latte ayaa la dhahaa. Marka kan ayaan cheekskayga wala marinayaa. Waa kaas blush bronzer wixii dhan wala marsaday. Imika waxa ii harsan in aan furuuraha sameeyo. Marka lip linerka aan isticmaalayo, actually furuuraha soo clean gareynaya, ana waan ugu soo noqon doonaa. Okay, so lip linerka aan isticmaalo waxa weeyaan KKW Beauty Love. Ani horta KKW Beauty makeup, amba de lip linerskayga, lipstickeeda, eyeshadowgeeda waan ka helaa aad. Marka waka furuurihiina waan clean gareeyay. Marka ila daawada insha Allah. Waa kaas waan blend gareeyay, furuuraha ayaan isku mix gareeyay, laakiin waxaan u baahan yahay runtii dhexda ayaan u baahan yahay
إنه هذا كلين لكن وعادي وأنا سكدول مرن دونا أون so lipstick عن مرسني حويا soft matte lip cream أيان مرسنيا in Cape Town and أبو دبي مركا إلى داودا I think waxaan ku horeysiin doonaa Cape Town Abu Dhabi baan ku horeysiin doonaa and then Cape Town baan ku xigsiin doonaa بس كريمك waxay haray inaan spray galiyo wajigayga marka sprayga aan isticmaalayo maanta waxa weeyaan aan Urban Decay all nighter Urban Decay spray marka waan lulayaa and then wajiga oo dhan baa marka ku spray garan doonaa qay marka after waxaan isticmaalayaa highlighterka ayaa marka marsanayna marka la daawada Okay, wakaas waan damiyay makeup looki and wakaas I hope inaad ka hesheen I hope inaad si fiican u barateen sida makeup loo sameeyo ama sida maanta u sameeyay and runtii waxaan doonayaa in yaro eyeshadow so waxaan marsan doonaa waxa weeyaan Huda Beauty ayaan doonayaa bunigan halkan ku yaala this one right here inaan indhaha hoostiisa uun ku blend gareeyo nothing major just interior inaan ku yara blend gareeyo waan damiyay and inshallah waynoo videoga dambe aan sameeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iloobina social mediagayga wala follow gareeya TikTok imika TikTok baan aad ugu jiraa marka TikTokayga wala follow gareeya inshallah waynoo videoga dambe aan sameeyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh